بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحسلام يا دمان أمد الصوماليين. مقعيقو سلطان عبد الله محمود maamulaha macadka midnimo Institute for Political Science and Knowledge. sida ballanteena ahaan jirnay waxaan rabnaa insha Allah buugaan akhriyo reviewgiisa in dhammaan ummadda Soomaaliyeed ama bulshada Soomaaliyeed ama ganacsatada Soomaaliyeed aan la wadaago insha Allah. buugan qiimeyntiisa waxaa la yiraahdaa buugga consumer behavior baa la yiraahdaa. waa buuggaas awooda jeedaan consumer behavior baa la yiraahdaa. waxa qoray iyo waxa uu ka hadlayo baynu rabnaa insha Allah maanta inaynu ka hadalno. qiimeynta buuggan asbuucan reviewgiisa u dambeeyay aanu soo diyaarinay oo soo analyze garaynay. runtii buuggan consumer behavior waxaa qoray saddex qoraaba qoray. qoraayadaas intaa waa ka badan yihiin. qofta koowaad oo qoray waa gabar waxaa la yiraahdaa Catherine Nile baa la yiraahdaa. waa qof aan aad u naqaano oo waxa weeye business grade iyo marketing grade of MCB iyo MCA ka soo qaadatay. waa qof waxa weeye London School Advancement of Marketing wax ka dhigta. sidoo kale public relations wax ka dhigta. sidoo kale Queen Islamic University wax ka dhigta. waa khabiir consulate oo ah work experience oo muddo 25 sano ah consulate ahayd. sidoo kale director waxay ka tahay MBA. sidoo kale waxa weeyaan waxay katal ay tahay research-keeda oo focus ku saarta consumer behavior. sidoo kale waxay qoray CB oo simultaneous conversion oo consumer behavior ka ah. sidoo kale buuggan waxa qoray nin la yiraahdo Dailin xaq wanaagsan kala oran jiro oo wadagii curyaanka ahaa. taariikhdiisu aadka waxa way u sareysay. wuxuu waxa weeye PhD ka haysaa BBA and BMB buu ka haystaa. waxa way wuxuu wax ka dhigaa jaamacadda University of the Gordon. sidoo kale waa professional of market of department of the waxa way consulants. sidoo kale wuxuu wax ka haystaa oo takhasus ku haysaa consulants of training. sidoo kale wuxuu wax ka dhigaa institution la yiraahdo International Study of Training of Japan wax ka dhigaa. daily hagnas waxyaaluhu aadka u raadiceeyo waxyaaluhu aadka u daraasiceeyo. waxaa la oran karaa ninkan ya daily hagnas waa ninka adduunka ugu buugaagta qorista badan marka la leeyahay. sidoo kale wuxuu wax ka dhigay oo director MB ka ahaa sector iyo private organizationada waxa way director ka ahaa organizationkii ugu caansanaa oo aan aadka u naqaan oo khasaaraha badan soo galay kadib markii uu CEO ka noqday company-ga adduunka ugu qaalisan, company-ga adduunka ugu wax soo saarka badan, company-ga shaqaalihiisu adduunka ay ugu wanaagsan yihiin uu noqday. ninkaas taariikhdiisu leeyahay. marka haddaan isla eegno buugga waxyaalaha laga qoray iyo qaabka loo qoray iyo consumer behavior-ka. buugga wuxuu ka hadlayaa wuxuu leeyahay waxa weeye 4 section waaye. sectionka koowaad, sectionka labaad, sectionka saddexaad iyo sectionka afraad. section uu leeyahay. sidoo kale unitkiisuna waa 19 unit. sidoo kale waa 674 page waaye. uu ka hadlaya marka meelaha ugu fiican barnayna focus ka soo saarna hadoo alla insha Allah annagoo wali waqtiga ilaalinayna. for example oo kale part 1 hadda ka fiirino oo kale ama part 1 oo halka ku qoran waxay ka hadlaysaa oo focus ka saaraysa consumer behavior and marketing strategy, consumer decision process, situation analyzing, problem recognition iyo information research basaaraya. intaas buu xarunayna analyze gareyno. sidoo kale part 2 waxaan ka soo qaadanay precipitation, number 2 learning and memory, motivation and personality and motivation baa ka soo qaadan. sidoo kale attitude of change number part 2 intaas ka soo qaadanay. sidoo kale part 3 external evaluation asna waxaan ka soo qaadanay demography waxa way demography and waxa way lifestyle-ka. sidoo kale household structural commission of the behavior consumer behavior. sidoo kale group influence and communication ka. sidoo kale social classes ka, culture and cross of variation ka. intaas ka soo qaadanay part 3 oo waxa way section 4 ah. section 3 and section 4 ugu dambeeyay consumer and society, consumer research method ka iyo some examples. intaas baanu rabnaa insha Allah inaynu qodob isu dul istaagno hadduu alla idmo insha Allah. consumer behavior muxuu yahay? what's the consumer behavior? maxay tahay consumer behavior? maxay tahay consumer value? maxay tahay marketing strategy? waa maanta waxaan rabnaa insha Allah buuggan inaan ku qiimeyno. qoftii la oran jiray Catherine Nile, Daily Hawkins iyo Masclas Sessions saddexdaasba waxay buuggan ku qeexayaan macaamiisha la dhaqanka ama dabeecadaha ay macaamiishu leeyihiin. sidee baan macaamiisha dhaqankooda iyo culture-kooda
iyo cultural variation kooda sidee baan behaviorka aan ugu kasban ka dhaawalay waxay leeyihiin waxyaalaha qaarkood ka mid ah consumer value-ga consumer value waxa weeye waa value of process systematic ah qofka qiyimka iyo nidaamka iyo strategiga iyo waxyaalaha behaviorka uu aaminsan yahay consumer behavior haddaan fiirino waa discipline leaning with consumer behaviorka dadkaasoo attitude dhiskiisu personal productigiisu iyo servicekiisu intaba u baahan yahay si nature si dabiiciyana si dhaqan wanaagsanna in loo helo inaad macaamiisha transaction la samayso inaad macaamiisha aad wax la samayso waxaa ka horeysa marka hore understand of the consumer behavior haddii aad fahanto dhaqanka consumer behaviorka dhaqanka macaamiishada haddaad fahanto sideed qayb oo kusoo xerogelaysa waxaa kusoo xerogelaya demography iyo household structure-kooda kusoo xerogelaya dadkii deegaankoodii iyo waxaweye guryahoodii iyo waxyaalihii laga sameyn lahayo ciddii u baahneyd iyo intaba waa kusoo xerogelaysaa sidoo kale waxyaalaha needska ay u baahan yihiin iyo emotionka dareenkooda iyo value of personality-gooda intaba waa ku hirgelaysaa sidoo kale waxyaalaha ku hirgelaya waxaa ka mid ah group of influence sidoo kale barges and use of the behavior-ka iyadana waa ku hirgelaysaa sidoo kale regulator of the policy of product to consumer iyadana waa ku hirgelaysaa sidoo kale marketing strategy to justify strategic consumer behaviors inaynu fahanno consumer behavior-ka dhaqanka macaamiisha waxaa noo sahlaya in strategic marketing inta aanu dhaqanka iyo macaamiisha aynu fahmin waxaa ka horeysa inaan horta dadka dhaqankooda fiirino dadka dhaqankooda analyze garayno dadka dhaqankooda markaan ogaano baan waxa sameynaynaa marketing segmentation wax la yiraahdo marketing baa sameynaynaa strategy of marketing waxaan xayeysiinaynaa dadkii baan soo dhaweysanaynaa sida uu leeyahay gabadhii la oran jiray Neil of Cathanal of Neil waxay leedahay dadka waxa ku soo xirigelin kara dadka waxa ku kasban kara consumer behavior ka inaad hayso dadka dhaqankooda cultural values-kooda waxyaalaha ay dadku ku kala duwan yihiin cultural-kooda iyo variation-kooda inaad samayso dadka waxa way inaad samayso information research-ku iyaduna waa muhiim wax aad loogu baahan yahay weeye Soomaalidan inta badan waxa ka maqan consumer behavior warsidee macaamiishaada ula dhaqmaysaa war macaamiishaada sidee u soo dhaweynaysaa war macaamiishaadu sida haddii aad consumer behavior-ka fahanto waxaad fahmaysaa oo kuu fududaanaya product service-kaaga in lagaa gato waa sidee marketing baad samaynaysaa waxbaad xayeysiinaysaa waxbaad soo gadaysaa waxbaad dadka la wadaagaysaa waa inaad market segmentation samaysaa market strategy waa inaad samaysaa marketing mix waa inaad samaysaa intaba waxa ay kuu sahlayaan inay macaamiishaada ay kusoo dhawaadaan good sidoo kale waxyaalaha aanu qiimeynayna waxaa ka mid ah new market application-ka waxyaalaha strategic marketing-ta waxaanu soo fahnay behavior-kii dhaqankii macaamiisha waanu soo fahanay haddii aynu dhaqanka macaamiisha aynu fahno wax kasta waa inoo hirgelayaan in macaamiisheenii in productgeeni la iibsado servicekeeni adeegeeni la qaato waxa weeyaan annaga macaamiishan ay wax naga gataan annaga ay nagu xiran yihiin oo baarjeysana annaga ay nagu waxa weeyaan fahmaan waxyaalaha ay u baahan yihiin iyo dareenkooda iyo shacbiyadooda iyo cultural variation-kooda intaba waanu haynaa haddii aan consumer behavior ka baahno halkaas dhaqankii baanu ku soo dhignay dhaqankii baanu soo fahanay marka haddii aad dhaqankii fahantay maxaa kuu fududaanaya waxaa kuu fududaanaya new marketing application wax la yiraahdo global marketing iyo marketing mix wax la yiraahdo inaad samayso in haddii aad dhaqankii fahantay dadkana waxay u baahan yihiin information research baa samaynaysaa dadku sida ay